muran xoog leh iyo diidmo ayaa lagala hor yimid natiijada imtixaanka ee fasalka 12aad oo ay maanta shaacisay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah. imtixaanka oo ay sanadkan u fariisteen 32,727 arday ayaa waxaa baastay 25,177 arday halka ay dhaceen 8,550 arday sida ay wasaaraddu shaacisay. laakiin arrinta dooda badan abuurtay waxa ay qusaysaa gobolka Banaadir oo ay imtixaanka u fariisteen 25,449 arday. Banaadir waxaa baastay 17,576 arday waxaana hartay ama dhacday 7,873 arday. waxay ka dhigan tahay in 36% ay dhaceen ardaydii imtixaanka u fariisatay ee gobolka Banaadir. maamulka Jubbaland oo imtixaanka u gashay 991 arday ayaa waxaa dhacday 4 arday oo kaliya. waxaana xiiso leh in 10 iskuul ee ugu sarreysa sanadkan in 6 ka mid ay ku yaalaan Jubbaland, gaar ahaan waxa 4 ka mid ay ku yaalaan gobolka Gado. waxaa kale oo gobolka Gado helay tirada ugu badan 100 arday ee ugu sarreysa imtixaanka oo la sii ogaa in la siin doono deeq waxbarasho. siyaasiga Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee Galmudug oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee dowladnimada ka hor lagu bartay ka shaqaynta waxbarashada, ayaa ku tilmaamay natiijadan mid aan la laqi karin oo fashil badan ka muuqdo. Guuleed oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa dhowr sababood dartood ku sheegay in arrintan ay u baahan tahay dib u eegis iyo in loo saaro guddi heer qaran ah. dadka kale ee diidan arrintan ayaa daliishanaya 4 qodob oo kala ah. 1. sida ka muuqata jaantuska natiijada imtixaanka waxaa guud ahaan u fariisatay 32,727 arday waxaana haray ama dhacay 8,550 arday, taasoo ka dhigan in 25.35% ay dhaceen. tani waa arrin mustaxiil ah inay sax noqon karto marka indha aqooneed lagu eego mawduucan, ayay leeyihiin dadka natiijadan qaadan la. 2. gobolka Banaadir waxaa imtixaanka u fariisatay 25,449 arday waxaana hartay ama dhacday 7,873 arday, taasoo ka dhigan inay dhaceen 36%. waa arrin kale oo ka maajisa dad badan shakina abuurtay. 3. gobollada kale oo dhan ardayda baastay waa 7,601 arday halka gobolka Banaadir ay dhaceen 7,873 arday. inta dalka qaybihiisa kale ka baastay waxaa ka badan inta gobolka Banaadir ka dhacday. 4. boqolka arday ee ugu sarreysa imtixaanka oo la sii ogaa in deeq waxbarasho la siin doono waxaa maamulkii ugu ardayda badnaa oo 25,000 oo arday ka badan ay ka socotay ee Banaadir uu ka helay dhowr qof oo kaliya. waxaana ka badan maamul goboleedka Jubbaland oo ay wax ka yar 1,000 arday u fariisatay imtixaanka. intaas iyo in ka badan oo la wada fahmi kara inaanay maangal lahayn ayaa natiijadii maanta ka muuqata ayay leeyihiin mutacallimiin badan oo muddo dheer waxbarashada ka soo shaqaynayay, kuwaas oo tuhun geliyey natiijadii maanta. dadka qaarkii ayaa soo jeediyey in loo baahan yahay in baaris degdega la sameeyo lana hubiyo 4 qodob oo kala ah: inuu imtixaanku baxay oo koox gaar ah la siiyey, inaan imtixaanka gobollada qaarkood la siixin, in dana shakhsiga looga faa'iidaysto arrintan, iyo inuu dhacay qalad intii sixitaanka lagu jiray. dadka dooda ka keenay natiijadii ay maanta shaacisay wasaaradda waxbarashada ayaa iftiimiyey inay wax isdabamarin dhacday, waxayna madaxda dowladda federaalka ku booriyeen in aan la fududaysan arrintan oo loo saaro guddi xaqiijin ku sameeya habkii loo qaaday imtixaanka, habkii loo saxay, iyo in dib u hubin lagu sameeyo dadkii gacanta ku haya hawshan. haddaba sidee u aragtaa natiijadii maanta soo baxday? mise aaminsan tahay inay si uun wax u qaldan yihiin? maxaase la gudboon wasaaradda waxbarashada? fikirkaagu waa muhiim.